dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo Galmudug hay'adda CBD iyo waliba ururka horseedka horumarka gobolka Mudug ayaa iska kaashanaya ololaha bilic soo celinta degmada Gaalkacyo iyo la dagaalanka nadaafad darrada. Ololahan ayaa soconaya maalintii shanaad waxaana isbarbar socda dhiraynta iyo bilic soo celinta degmada Gaalkacyo. dhalinyarada horseedka horumarka gobolka Mudug oo qaarkood la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay sii socon doonto shaqadan maadaama xilligan la galay waqti roobaadka. Xildhibaan Maxamed Xaaji oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo, Sharmaake Axmed Bulshakaab xogayaha ururka horseedka horumarka gobolka Mudug iyo waliba gudoomiyaha ururka horseedka gobolka Mudug Barasha Saciid ayaa si wada jira warbaahinta oo la hadlay. Magacaygu waa Maxamed Xaaji oo ka socda dowladda hoose xildhibaan golaha deegaanka degmada Gaalkacyo. Maanta waxaan noo bilaabay dhismeeystii aniga Saciid hay'ad CBD oo ah 200 geed oo magaalada lagu beerayo oo aan iska kaashananaga iyo ururka horseedka dhalinyarada deegaanka horumarka. Alxamdulillah ilaahay maanta uu noo bilaabay inta aan socotay maanta dhibiristu baa bilaabatay ilaa 50 geed ayaan beereynaa. Hawshaas oo lagu dalnayaa bilic soo celinta magaalada dhalinyarada laga qayb qaaday aad u maasii yihiin horseedka boqolkiiba boqol ma celinayna shaqooyinka badan waa ka sugeynaa horena way u soo qabteen adanka degmo ahaan anagana waa insha Allah waa fududeynaa wax kasta fududeena baa leenahay hay'ad CBD oo ma celinayna intaan inka badan waa ka rajeynaynaa aad baa maasii noo soo geliyay shaqada inaan dhamaantiinba isku nimaadno waxaan taaganahay mid kamid ah wadooyinka waaweyn magaalada Gaalkacyo. saaka waxaa socota shaqo aad iyo aad muhiimsan oo ah bilic soo celinta magaalada Gaalkacyo. hawshan waxaa iska kaashaday oo runtii dhabarka saartay dhammaan ururka dhalinyarada horseedka iyo dowladda hoose degmada Gaalkacyo iyo hay'adda CBD. muhiimadeenu waxa weeyaan ujeedkeena yani magaalada noo qurux banaato dadkuna ay ku diirsadaan magaalo qurux badan dadkuna ay fursad u helaan meel ay ku caawiyaan runtii waliba dhalinyarada magaalada noqoto magaalo qurux badan oo dad walba ay ku soo hirtaan. muhiimadeedu waxa weeyaan shaqadan waxaan soo galnay saaka waqti hore saacadana waan taaganahay runtii dhalinyaradu shucuurtooda runtii waxay diyaar u yihiin inay wax walba ka qabtaan deegaanka oo wax walba ay gacantooda ay ku jirto. aad baan ugu faraxsanahay waxaan beernay geedo ugu yaraan 50 adees ka badneen geedaha noo diyaarsan 200 rajaynayna in kuwa kale hataa noo yimaadaan cid kale hataa insha Allah oo ka mid noqon doona. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahad iskale. marka la waxaan rabaa inaan mahad celiyo dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo iyo hay'adda CBD. waxa asbuuci koowaad noo socda oo meel fiican maraya barnaamijkii dhirbeerista iyo bilic soo celinta degmada Gaalkacyo. barnaamijkaas oo ay iska kaashanayaan dowladda hoose iyo hay'adda CBD oo ay fulinayaan ururka horseedka horumarka gobolka Mudug ka shaqeeya horumarintiisa. barnaamijkan waxaa laga sameeyaa xaafadaha Gaalkacyo iyo wadooyinka waaweyn ee halbowlaha ah. hadda waxaan joognaa bartamaha magaalada Gaalkacyo wadada Bilarafle. waxaan dhirbeerista ka wadnaa jibdimada ugu waaweyn ee magaalada dhexdeeda ka dhisan qaybo yar oo ka dhimana waxaana muuqata bilicda inay si fiican quruxda magaalada u soo baxday oo geedii hadda ka hor aan beernay si fiican magaalada quruxda uga qayb qaateen. barnaamijkan markuu soo dhamaado insha Allah waxaan rajaynayaa in natiijooyin fiican oo wax ka ool ay ka soo bixi doonaan. waana barnaamij ku saabsan bilic soo celinta iyo qurxinta magaalada Gaalkacyo. dhirtu faa'iidooyinka ay leedahay in badan waa laga soo sheekeeyay. waxay ka qayb qaadataa horumarka iyo bilicda magaalada sidoo kale waxay soo jiidataa roobka oo kale meel kasta oo dhir leh waxay ka nafci badan tahay oo ay ka qurux badan tahay oo ay ka qabow badan tahay meelaha kale aan dhirka lahayn. sidoo kale waxaan mar kasta ka hortagnaa oo ka digaynaa in jaris lagu sameeyo dhirta oo xaalufin lagu sameeyo. cid kasta oo ka qayb qaata horumarka deegaanka oo barnaamijka taakulaysan waa mahad celinayna. dowladda hoose iyo hay'adda CBD ayaa barnaamijka iska kaashanaya iyagana waa mahad celinayna. aad ama sinti qof kasta oo marka qayb qaadana waa soo dhaweynaa. Maxamed Cabdullaahi CD Ogaal TV Gaalkacyo.